السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملك سؤال أدوك جوكتان دماتي وحق سلامتي سلامة إسلامك. waxaan doonayaa inaan idin soo gudbiyo saddex arrimood oo yaryar. Arrinka koowaad waa nin xildhibaan Nuuruddin la yiraahdo oo Buuhoodle laga soo doortay oo hadlay oo dhalinyaro aan lagu dhigsan yahay, dhalinyaro ku dhigsan aan arkayay oo hadalkiisii saameyn yeeshay. Ninkaasoo uu yiri, ninkaasoo kelmadda uu ku haa kelmadiisa adigu ay kamid ahayd xabad xal maaha, bartana waa idin soo dhigi doonaa. Bal ninkaas horta qofka uu yahay idin qeexaya. Waxa kale oo isagana ka hadlaynaa ciidanka Soomaaliland oo muuqaal waxa intusaya isaga dul ciyaaraya laascaanood. waayahay waxa saddexaad ay soo gudbinay doonaa waxa weeye in qalasiyada kamida oo la war maxaa meesha loo gali waayo yaabana oo kala hadlaysana insha Allah waa idin tusaya. waayahay horta waxaan ku horeynaa xildhibaan Nuuruddin. wal waxa ila daawataan xildhibaan Nuuruddin oo ka hadlaya arrinka laascaanood ahna nin dhulbahanta oo laga soo doortay baalkii Buuhoodle. bal ila eeg hadalkiisa bulshada hadalhaynta ka dhaliyay hadalkiisa waa kane. maalin kasta oo xabad laascaanood lagu sii ridaa dadka deegaanka laascaanood inay sii fogaadaan mooyaane soo dhowaan maayaan. in lay dhaliilo, in lay maago, in dadka kuwa halkan jooga ay ugu maagaan yaasi maxaad u raaci weyday, waa sababta aan mataqaanaa maxaan ku soo u guddoonsaday dadka inta aanu isku fikirka ka nahay dhibaatada meesha ka taagan. anigu waxaan la danahay qofka ila aragtidaa qofka mataqaanaa maxaan waayahay inaad daawatay marajeynaya hadalkiisa hal iyo laban ka oranaya. horta waxaan ka codsanayaa muuqaalka lay garee share garee commentiga insha Allah waxay rayaa ku reeb muuqaalka lay garee markastoo lay gareyso meel fog waa markastoo sii gaadho like tawa garanaysan. waayay xildhibaan Nuuruddin horta halkan marka koowaad waa ka salaamaya mar hadda isaga ka hadlaayo. waa islaamnimo markastoo uu mudan yahay dawaan xildhibaano sharaf leh. waayo aanu guda galo xildhibaan Nuuruddin hadalkiisa xaaladda uu ku soo beegay iyo qaabka uu hadlay ayaan doonayaa hal iyo laba inaan ka dhahdo. horta xildhibaan Nuuruddin hadalkiisa waan soo wada aragnaa. waxa uu yiri laascaanood xabad kasto markastoo xabad lagu ridaa way sii fogeynaysaa. waxa kale hadalkiisa yiri xabad xal maaha. hadalkaasan hal iyo laba ka oranaya. war horta aniga marka koowaad hadalkiisaas uma arko hadal waqti ku haboon yimi, uma arko waqti gudoomiye golaha wakiilada la doortay, nin reer Sool la doortay, nin weyn oo maanta 70 jir la doortay, Sool ku dhashay, khibrad u leh Soomaaliland wax badan u soo shaqeeyay, waqtigiisa intii u badnay Soomaaliland u soo shaqeynayay la doortay oo golahii wakiilada la saaray ayuu hadalkiisaas ku soo beegmaa. oo horta hadalkaas horta waqtigiisii ma aha, waa marka koobaad. marka labaad waxa uu yiri xabad xal maaha xildhibaan Nuuruddin. waynu anagu waan ognay inaan xabad xal hayn, cid kasta waa ogtay inaan xabad xal hayn, laakiin xalka lagu sugayaa oo maanta waxa lagu sugayay faratoon oo kale. saa ogeed golaha wakiilada waxa saarnaa golaha wakiilada gudoomiye waxa ka ahaa Cabdirasaaq Khaliif. halka ka salaamnaa asagana hadda garoow jooga. ninka waxa dhacday inuu tagay markiiba laascaanood tagay arrinkan Soomaaliland u xil saartay, aakhirkiina sidoo ku tagay aynu ogeynay sidoo ku biyo shubtay iyo aragtidiisii iyo wajigiisii uu la soo baxay markii dambe aynu ogey. maantana waxa meesha saaran waxa weeye oo gudoomiye ah nin reer Sool ah oo xildhibaan Faratoon la yiraahdo. ninka ayaa laga warsugayaa. ninkaas ayaa kelmadan aad ku hadlay kelmada Cabdirasaaq Khaliif ku hadlay weyn ogeyn. kelmadan aad ku hadlaysa iyo hadalkaagan adigu maad lahayn. waxa la Cabdirasaaq Khaliif. Cabdirasaaq Khaliif waxaan anigu inankii reer Boorama looga soo reer Boorama ahaa ee Cali Xamuud aanu ka lahayn ka codeeya oo Faratoon codeeya waxa weeye inuu afka reer Sool ku hadli karo matali karo weeye. oo hadalkiisa haduu maanta reer Sool laga soo baxo haduu reer Sool waa sida aan oran karo nin reer Sool hadalka yiri din matala sida yiri ya taas ayay ahayd. marka adiga hadalkani waqtigii aad hadalka ku hadli lahayd may ahayn. dhanka kale shakhsiyadiisa u si tago. horta ninkani waa nin markii la asaano dhagax la tuurayay waa nin tagay dabcan qori qaatay waxyaalo badan sameeyay. hase ahaatee haddana nin markii dambe soo noqday oo qaranka ku soo noqday. hadallo badan oo dhex maray dadna waynu ogey. waa ninkaas horta tigitaankiisa oo kale aan si gaar ah u qeexa dagaalkiisa ayaan qeexay tigitaankiisa
waxa uu tegay baan oran karaa markii dhagaxa la tuurayay dhagax tuur iyo waxa ay socdeen dhagaxa tuurna dhulbahanta tuurayay dabcan dhulbahantana waabu matala inkastoo xalka inuu nasteex ku dayo inuu bulshada dejiyo ay ahayd dhulbahantana waaye laakiin maanta dhulbahanta dagaalamayo lama oran karo weynu ognay meelaha la isaga yimi oo maanta dadku matalayay ayaa soo ka dagaalamaya kelmadda ma oran karno ama la asaanood ka dagaalamay ma oran karno waa inagu gaf ninka baaq waxaan u diraya dhalinyarta horta ku yara dhigsanaa hadalkiisa waa ninkaas waa nin qarana waa nin waqti adag qaranka ku soo noqday ama faratoon ha codeeyo ama ha ka codeeyo aragtiisa asaga oo xora xildhibaan Khadar Abiib waa kii hadlay maxaa la igu caayay buu aragtidii fartida aniga ana xore ilaahay baan waxa weeye ii sheeg amarkayga la kaashada ilaahu keeba saxun baa idhaahdaayo waxa weeye waa codeeyaa marka ninkaasi guriga ciru tagay iyo waxa weeye mucaarad kula soo saftay iyo waxa weeye waxaasi wax macquul ma aha ninkaasi waa nin qaranka ku jira oo xildhibaanka baarlamaanka Soomaaliland kamid ah wax loogu dhigdhigaana waa qalad waayahay hadalka xildhibaanka saasaan ka oranaya isaga bal waxaad ila daawataan muuqaalkan laygna gareeyo muuqaalka lay gareeyo bal ciidanka Soomaaliland oo ku dul ciyaaraya la sacaanood bal ila daawado waa koone kuwaasina waa ciidankii qaranka oo magaaladii la sacaanood dusheedii ku ciyaaraya kuna baashaalaya maanta uuna dabaal degaya faratoon waayahay inta markan ka nimaadno bal waxaad ila daawataan gabadh yar oo aad u xaraaba oo jirtay gooch cadda dameer galiya oo yaabal way yaabantay bal waxay leedahay iyadana ila eega gooch cadde isaaq kuma jiro 30 sano dawladaha ay hubka ku soo ursan muxuu sheegaa kaad ila tirayay idinka keenay waa qarxin kara meeshaas fadhay wariya runta sheega dadkan runta u sheega waxa meeshan fadhiya hal sheego walaalayaal ma dagaali karaan dadkan meesha jooga hartiga waxay isku dagaali karaan cirka dhan baa laga haystaa ma hadlaya ma raba inay gabadhaasina waa gabadh kamid qalasiyada oo yaaban weeye oo ka yaab waxa meesha ka socda ciidanka Soomaaliland way horta muuqaalkayga intaas ayaan ku soo qaadanayaa insha Allah barnaamijkeena intaas isaga joojinayaa kelmadaha yar kooban ayaan jeclaystay inaan meesha ka idhaahdo insha Allah waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalka la gareysaan horta hal midna gaar baan ka codsanayaa maanta channelka subscribe ta saara commentiga la gareeya muuqaalka si share gareeya insha Allah subscribe ta aad iyo aad ayaan weli ka codsanayaa waayahay intaas isaga joojin doonaa insha Allah kulanti dambe xiiso leh hadii Ilaahay awood leh uu yiraahdo